daawadayaal halkan nagala socotaan warfadhi media qodobo waaweyn ayaa inoo soo socda waa 29 bishii Abriil 2019 waa wararkii Cali Dhili Cabdulwasiid Iran iyo Mareykanka oo isku birtumanaya Iran oo hanjabaysa iyo waliba waxa kale oo inoo soo socda Mareykanka oo la sheegay in ay ka warhayeen cilada diyaaradda soo fosaartay Boeing 737 Max 8 ayaa ka mid ah horta qadar adeega bulshada Amal Express ku dirso lacagtaada kana qaado meel walba caalamka kaga sugan tahay waxaad ka helaysaa adeeg hufnaan iyo ammaan ku dheehantahay dhammaan ka faa'iideyso adeegyada Amal Group halkaad nagala socotaan waa warfadhi media wararkii ugu dambeeyay warbixinada Cabdulwasiid ee dalka Spain doorashadii ayaa la sheegay in boqolkiiba 95 la tiriyay codadka iyadoo la sheegay in xisbiga socialistaha ee ra'iisul wasaaraha xilka ka sii degayay ee dalkaasi Pedro Sanchez uu ku guuleystay isla markaana uu hogaaminayo codadka waxa la sheegay in 123 kursi oo ka tirsan ayaa li 350 kursi ee baarlamaanka dalkaasi ka kooban yahay ay ku guuleysteen isla markaana ay hogaanka u hayaan ayaa xisbiga socialistaha ee isagu dagaalka adag kula jira xisbiyada midigta fog xisbiga leeyahay Unidas Podemos ayaa la sheegay inuu asaguna 42 xubnood ku guuleystay halka la sheegay in xisbiga PP leeyahay uu asaguna ku guuleystay 65 oo xisbiga dhinaca midigta u janjeera halka xisbiga nacaybku madax maray Fox la sheegay iyaguna 24 cod heleen taasoo la sheegay inay kor u qaaday taariikhda dalkaasna ay noqotay markii ugu horeysay xisbi nacaybku aan baxay oo intaas oo cod helo si kastaba ha noqotee waxa la sheegay in dawladda dalkaas haatan ay u baahan tahay in ay gaarsiiso si ay dawlad loo soo dhiso 176 kursi dawladii xisbiga hela ayaa dawlad soo dhisaya ra'iisul wasaaraha jagada ka degaya ee dalkaasi Spain ayaa hore uga digay in dalkaasi ay qabsadaan waxa uu ugu yeeray kooxo canaasiir ah oo markaasi ka soo huraaqay ama ka soo jeejire dalalka ayuu reer Europe oo dhan dalka Libya dagaal cusla ayaa weerar iyo celis kalkaas ka soconaya ayaa la sheegay in dagaalku hadeerto uu noqday mid guri la suugo galayo dagaal xira ah oo xooggan ayaa halkaas ka soconaya dawladda dalkaasi Libya ayaa waxa ay ku eedeysay dawladda shisheeye iyo kooxda Haftar inay adeegsanayaan diyaarado ay soo siiyeen dalal shisheeye kuwaasoo bartilmaameedsanaya dadka rayidka iyadoo la sheegay in weerar culus oo dhinaca cirka rogaal celisa oo ay soo qaadeen kooxda Haftar ay ku laayeen dad shacab ah sida ay sheegayso dawladda dalkaasi ee fadhida magaalada Tripoli ciidanka Haftar ayaa waxay isugu yeedheen inay yihiin ciidanka qaranka ee dalka Libya ama waxay yiraahdeen Libyan National Army ayaana la yiraahdaa LNA loo soo gaabiyo iyadoo Haftar la sheegay in dagaaladii ugu dambeeyay badankoodii lagu jabiyay si kastaba ha noqotee koox ka tirsan wakaalada wararka Reuters ayaa waxa ay sheegeen in ay booqdeen degmada la yiraahdo Ayno Sara ee dhinaca koonfureed ee dalkaasi waxaana sheegeen in halkaasi uu ka soconayo dagaal ay wado ciidanka la yiraahdo dawladda la yiraahdo GNA ee dalkaasi dawladda midnimo qaran oo la sheegay in ay siqitaan xoogan wali hayaan waxaana wararku ay sheegayaan in dagaalka ugu culus hadda uu ka soconayo airportka ama garoonka diyaaradaha istiraatiijiga ah ee magaalada aadka uga fog kaasoo la sheegay in ciidamada ninka jaranka ee asagu la sheegay inay dalalka Carbeed qaarkood hubeenayaan ee adeegsanayaan diyaarado casri ah wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegay in diyaaradahan dagaalka ku soo piiray ee u muuqdaan kuwa dalal shisheeye ay leeyihiin walow dawladda China ay diiday inay carbaabto dalka laga leeyahay dambiilayaasha waxa ay adeegsadeen kadib markii ay ku hoobteen ama ay ku guuldareysteen ayaa la dagaalkii ku soo qaadeen Tripoli isla markaana ay noqdeen wax la laayay iyo wax la qabqabtay haatan waxay soo wadaan rogaal celis ayagoo adeegsanaya diyaarado dagaal oo aysan iyagu lahayn oo dalal cadow oo sheeyay ay leeyihiin ayuu yiri Mohamed Yunis oo ah afayeenka dawladda dalkaasi oo barta Facebook uu ku leeyahay warkaasi ku soo qoray dagaalka ayaa haatan waxa uu eegyahay mid markaasi aad la sugu gacan galiyay waxaana dagaalka gacanta la isla tagay uu ka soconaya guryo ka tirsan dhinaca koonfurta iyo waliba magaalada fog ee Al-Qaryaan la yiraahdo halkaas ay ku hareereysan yihiin ayaa la ciidamo ka tirsan kuwa Haftar waxaana la sheegay waxaana la arkay iyadoo ciidamada dawladda oo xataa qaarkood ay ku dagaalamayaan saraawiisha Chinese-ka ah iyo waliba dharka caadiga la arkay iyagoo qoryaha lidka diyaaradaha ka soo furanaya baabuurta isla markaana gacanta laba intay ugu qaataan guryaha ay ku tuhmayaan in kooxahaasi ku jiraan ku duminaya hay'adda dhinaca socdaalka adduunka International Organization for Immigration ayaa waxay sheegtay in dadka hadeerta ku markaasi barakacay dhacdooyinka ay gaarayaan 39,000 oo ruux iyadoo ay sheegtay sidoo kalena in dad kale oo markaasi ayagu ah soo galooti ay dhibaato xoogan iyo go'doon ku haysto xabsiyada qaarkood
halkaad nagala socotaan waa Horfadhi Media wararkii ugu dambeeyay warbixinada dhinaca diblomaasiyadda gaanka dunida oo dhan daawadayaal dowladda dalka Turkiga madaxweynahooda Rajab Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay in dagaal ganacsi oo argagixis ah ama argagax gelin dhinaca dhaqaalaha dalkiisa lagu hayo wuxuuna ka digay in argagax gelinta dhinaca dhaqaalaha ee dalkiisa lagu hayo aysan jilbaha dhulka ugu dhufan doonin isla markaana aysan Turkiga isku dheebi doonin dhaqaalaha iyo amnigu waxa ay noo noqon doonaan ayuu yiri doorka ama muhiimiyadda koobaad ee xilligan 40 sano ee lagu soo socota waxaana runtii socda ayuu yiri weeraro dhinaca dhaqaalaha oo 60 sano ugu dambeeyay dalkeen lagu talaafeenay 15 July 2016 afgambigii military ee dhicisobay ee ugu dambeeyay wuxuu ahaa mid dhaqaalaheena lagu barifaray ayuu yiri Erdogan oo markaas ka hadlayay xidhitaanka kulamadii ugu dambeeyay xisbigiisa AK Party ee kula hayeen magaalada xarunta ah ee Ankara ayaa waxa uu sheegay in uusan taasi ay joojin doonin waxa aan aaminsanahay ayuu yiri in daruuraha madow ee inagu weegaaran ay dhawaan kala tagi doonaan waxaanu qaadnay ayuu yiri talaabooyin wax ku oola oo aan doonayno in aanu ku meel marin ama ku hormarino muwaadiniinteena ayuu yiri wuxuu yiri waxa kama soo horjeedno ama dhan kama nihin ayuu yiri dadka maalgashadayaasha laakiin waxaanu dhan ka nahay ayuu yiri oo markaasi aanu si adag uga hortagi doonaa kuwa markaasi na mu'aamaradeynaya ayuu yiri wuxuu yiri waxa aan rabaa sidoo kale ayuu yiri in aan idin sheego in dawladaydu ay wado ayuu yiri tobo wanaagsan kuwaas oo dhamaantood u muuqda ayuu yiri inay mid dhalayaan madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan wuxuu sheegay in aysan arrintan aysan argagax gelin doonin dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha iyo wuxuu weerarada lagu hayo isnama argagax gelin doonaan ayuu yiri waxaanu horay ugu sujuudi weynay ayuu yiri argagax gelintii dhinaca ciidamada hubeysan iyo wuxuu yiri kooxaha la soo abaabulay is qarxinaya ma waxaanu haatan u joojinaynaa ayuu yiri kuwa marka dhinaca ganacsiga ama dhaqaalaha sidoo kale wuxuu yiri waxa muhiimad ah waxa weeye waxaanu rabno waxaanu qabanno iyo waxaanu qorsheyno ayuu yiri qaran ahaan ee ma hawo muhiimadu waxa ay dadka kale rabaan ama inaga rabaan ayuu sheegay Rajab Tayyip Erdogan oo si adag uga hadlayay markaas dhibaato xooggan oo ka cabanayo dhaqaalaha dalka Turkiga ayaa la sheegay in weerar baan uu ka socdo halka nagala socotaan Horfadhi Media ee maxkamadii shanaad ayaa la sheegay in la soo taagay 11 ruux oo la sheegay in loo haysto dilkii Jamal Khashoggi waxaase la sheegay in markii shanaad uu ka maqan yahay ayaa leeyay ninkii loo maleynayay inuu barta escape ka daawanayay sida loo dilay Jamal Khashoggi isla markaana ayaa la leeyahay kelmadda ugu dambaysa ninkii ka soo qaaday MPS oo ahayd madaxa ka soo gooya eyga isla markaana keena waxa la sheegay in Saud al-Qahtani la sheegay inuu ka maqan yahay maxkamadeynta sida uu sheegayo sarkaal dhinaca warwareynta u qaabilsan dalalka reer galbeedka oo la hadlay mid kamid ah wakaaladaha wararka waxaana la sheegay in bedelkii ninkaasi uu joogo General Ahmed al-Asiri oo la sheegay isagu inuu kor ka maamulayay kooxdii loo diray halkaasi ama teamkii loo diray kooxdii loo diray andhaho magaalada Istanbul inay soo diraan Qahtani kuma jirin 11 ruux ee maxkamadda wajahay ayuu yiri sarkaalkan oo AFP la hadlay balse magaciisa sheegay macnaheeda inuu ka maqay halkaasi laba garanayo in Sacuudigu uu diyaar garoobay inuu markaasi ninkaasi badbaadiyo ama ku agoogto iyo in ay si gaara u edbinayaan ayaa lagu yiri warkaasi cid og ma jirto ayuu yiri sarkaalka oo la hadlayay wakaalada wararka AFP ee dalka Faransiiska balse diiday in magaciisa la sheego dawladda dalkaasi Mareykanka hayadeeda CIA ayaa hore u sheegtay in ninkaasi uu ahaa xubnaha sida tooska amarka uga qaadanayay MPS ee ahayd in ay la soo qarajiyo ninkii wariyaha ee ugu dambeyntii la googooyay hilibkiisa halka nagala socotaan Horfadhi Media dhinaca wararka ganacsiga iyo tiknoolajiyadana shirkadda diyaaradaha ee dhacday markaasi Boeing 737 Max loo jiray ayaa marba fadeexad gaar ka soo baxaysa iyadoo arrimo ay yaab leeyihiin ayaa hadeerta waxa la ogaaday in waaxda dhinaca socdaalka federaalka maamusha hawada dalka Mareykanku ay ku tashatay ama ay ka fikirtay in sanadkii hore la joojiyo ama la fariisiyo gabi ahaanba diyaaradda 737 Max kadib markii laga shakiyay ayaa la yiri
dhacdooyinkii ka dhashay diyaaradii October dhacday ee dalka Indonesia lahayd ee loo jeeday Lion Air ee loo jeeday waxaana la sheegay in arintaasi ay dhalatay markii guddi khubaro ah oo ka tirsan waaxda la yiraahdo the Federal Aviation Administration ee FAA loo soo gaabiyay dalka Mareykanka maamusha badqabka hawada dalka Mareykanka ay fuushay ama ay gudaha u gashay in ka badan baa la yiri 34 inta badan baa la yiri 34 diyaaradood ee shirkadda Southwest Airlines ee dalka Mareykanku ay isticmaashay ee leeyahay 737 Max plane taasoo la sheegay in la ogaaday in sensorada ama bahalaha markaasi waayirada dhinaca markaasi sheega ciladaha ay ayagu istaarayaan markay doonaan isdaminayaan shakigaasna uu ka dhashay in nidaamka loo yaqaan MCAS ee ah dhinaca baylodnimada iyadu iswada ee diyaaradda loogu talagalay inay ayadu ismaamulayso waxaana la sheegay in ay khubaradu ay markaasi ku taliyeen in diyaaradda la joojiyo oo gabi ahaanba dalka Mareykanka aan laga isticmaalin balse waxaa la sheegay in shirkadda Boeing ay markaasi ku dootay in sensaradan aysan ahayn kuwo khasab ah in shirkaddu isticmaasho shirkadana aan loo sheegin arintaasi Southwest ayaa ogaatay ayaa la sheegay in ay khubarada dhinaca wadida diyaaradaha ama dadka duuliyaasha diyaaraduhu ay u baahan yihiin tababar dheeraad ah si ay u xakameeyaan diyaaraddu markay afka hoos u dhigato waxaa la sheegay in cilada ama masiibada ugu weyn ay tahay in diyaaradda oo afka hoos u dhiganaysa ay gudaha khalad ka sheegayso waana halka meesha ciladu ka dhalatay haddii diyaaraddu afkeedu hoos aadana taa macnaheedu waxa weeye in diyaaradda uusan duuliyuhu inuusan diyaaradda maamuli karin haddii diyaaradda afkeeda kor loo qaadi karinna taasi waxay noqonaysaa in diyaaraddu hoobato isla markaana ay diyaaraddu markaasi dhulka aado diyaaradda sideedaba lama ogola in afkeedu uu dhulka aado xataa marka ay sameynayso landing marka ay sameynayso fadhiisin waxa loo yaqaano marka ay fadhiisanayso ama degayso waayo mar walba waxa loo baahan yahay in afkeeda diyaaradda uu kor eegayo isla markaana si toos ah dhulka loogu sii daayo marka la dejinayo toosna loo baaciyo si kastaba ha noqotee masiibadu waxay ka taagan tahay ayaa la yiri in waxa gudaha ka muuqanaya iyo sida diyaaradda xaaladeedu ay tahay ay ka gabi ahaanba aysan isku si ahayn sidoo kale waxaa la sheegay in maamulka dhinaca MCAS loo yaqaan ee dhinaca automatic ah oo asaguna masiibo xoogan ay ka taagneed waxaana haatan aaminsan yahay sababta ay FAA arintaasi uga gaabsatay waxaase la yiri markii lagu sameeyay inspectionka waxa loo yaqaano tafniidida markii la tafniiday waxa la sheegay in khubarada waaweyn ee FAA ay diideen inay saxeexaan oo ay macnaha dhahaan diyaaraddan way baastay waa la wada karaa waxa la sheegay in waraaqahaas meel hoose lagu xaseeyay ugu dambeyntiisa diyaaraddii watii sii socotay isla markaana Ethiopian Airlines watay dhacday kuwii kalena waa kuwa dirqiga lagaga gaaray dadka halka nagala socotaan warfadhi media wararkii ugu dambeeyay warbixinada dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan dowladda dalka Iran ayaa taliyaheeda ciidanka qalabka sida ee dhawaan la magacaabay waxa uu ku dhawaaqay in ay dowladda dalka Iran ay wali isha si weyn uga hayso marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz isla markaana uu yahay ayuu yiri mid markaasi muhiim u ah jiritaanka caalamka wakaalada wararka isna isagoo la hadlayay sareeyo gas taliyaha ciidanka qalabka sida ee dalkaasi Iran oo ninka la yiraahdo General Mohammed Hussein Baqari ayaa waxa uu sheegay in ay ka fikirayaan in ay sida ay jirtayba ay badbaadiyaan marinkaasi balse waxa uu yiri hadii ayuu yiri ay noqon weydo maraakiibta shidaalka sida ee qulqula ay qayb ka noqon waayaan kuwa iyaga marinka Hormuz ma waxay kula tahay ayuu yiri in maraakiib kale oo iyaguna saliid qaadaya shaxnado ay caalamka sidoo kale gudbi doonaan taas ayuu wuxuu ku tilmaamay doqonnimo isla markaana wuxuu sheegay in ay albaabada isugu dhufan doonaan Hormuz wuxuu yiri hadii aysan maraakiibta iyadu halkaasi qulqulin oo cadaawadda Mareykanku ay sii xoogaysato marinkaas ama Suuriyadaas waa xiran tahay ayuu si cad u yiri waxa uu sheegay in ay taas uga gol leeyihiin go'aamada ugu dambeeyay ee haatan la aaminsan yahay in bisha May marka la gaaro labadeeda uu Mareykanku ku dhawaaqay inay noqon doonto maalintii ugu dambeysay jeerdhaafka dalalka Hindiya Shiinaha iyo Turkiga ay ku iibsanayaan ama ay tahay maalmihii ugu dambeeyay ee shidaal si iibsadaan ee dalalkaasi ka iibsadaan waxaana uu sheegay taliyaha ciidanka qalabka sida uu markale ku celiyay inta labadaas ay qaadan doonaan dhanka kalena wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Iran Mohammed Sharif Shafeed oo dalka Mareykanka ku sugan ayaa wuxuu ku tilmaamay go'aamada Mareykanka uu qaadanayo koow waali ah wuxuuna sheegay in ay dowladda dalkiisu ay u aragto ayuu yiri in ay tahay masiirka amniga qaranka iyo nolosha dadkiisa in
gacanka Persianka uu ahaado mid furnaada iyo marinka Hormuz laakiin waxa uu sheegay in Mareykanku taa qarbuday dhanka kalena taliyaha ciidanka qalabka sida ee saldhigga Asia dhexe ee dalka Mareykanka ee General Kenneth Mackenzie ayaa waxa uu sheegay TV-ga afka Carabiga qaybta afka Carabiga ku hadlay Sky News Arabia ee magaalada Abu Dhabi xaruntiisu ay tahay in ay u diyaar garoobeen in la iska waabiyo Iran hadii ay damacdo inay Hormuz xidho waxaan aaminsanahay ayuu yiri in aan diyaar u nahay in aanu qaadno ayuu jawaab celin degdeg ah iyo ficil wuxuu la hubo anagoo og ayuu yiri inaysan Iran ku tala jirin ficil wanaagsan inay samayso Iran waxa ka imaan kara ayuu yiri ficilo khatar badan laakiin waxaan diyaar u nahay ayuu yiri dhirbaaxo markaasi degdeg ah inaan anaguna sameeyno waxaanu diyaar u nahay in aanu si dhaqso leh aan u jawaab celino ayuu yiri xiisada labada dal ayaa cirka isku sii shareertay madaxweynaha dalkaasi Iran Hassan Rouhani ayaa asaguna waxa uu dhawaan ugu baaqay ciidanka qalabka sida in ay markaasi isku gadaamaan ama isku diyaariyaan in ay howlgal weyn ka diyaarsadaan marinkaasi General Mackenzie waxa uu sheegay in ay qorsheeyeen ayaguna inay ka hortagaan arintaasi wuxuuna ka digay in soo bixitaanka ciidanka Mareykanka laga soo saaray Suuriya aysan macnaheedu ahayn in la soo wada dhaafay gacanka iyo waliba dhulka Shaam balse wuxuu sheegay in diga rogasho ay ahayd isla markaana lagu xoojinayo ciidamada kale ee khaliijka fadhiya daawadayaasha qiimaha leh faafinta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda waa xaqiina sidoo kale barnaamijyadii waaweynaa daawadayaasha qiimaha leh qaybtii koobaad daawateen qaybtii u horeysay barnaamijka Isli in Nairobi dhaqaalaha yaala dabcan daawateen waraysiyo xoogan oo siyaasiyiinta dalka Kenya ee Soomaalida ah sidoo kale barnaamijyo waaweyn oo dalka Qatar ka imaanaya oo aqoonyahan Soomaaliyeed dadka ugu aqoonta badan dadka Soomaaliyeed ay ku casuuman yihiin sidoo kale daawadayaasha qiimaha leh waxaan kaloo idin haynaa tiriifka Soomaaliya barnaamijyadaasi talaadada ayay bilaaban doonaan ayaga dib u bilaaban doonaan daawadayaasha qiimaha leh halka nagala socotaana waxay noqon doontaa Warfadhi Media iyo faafinta wararka inaad idinku xoog saartaan